maalin kasta waxaa la soo saaraa waxyaabo laga sameeyo balaastikada sida caagadaha biyaha, kuwa koofiga, kuwa lagu qaato cuntada iyo waxyaabo kale oo badan. wax soo saarka dunida ee balaastikada waxa sanadkii 1950kii ay ahayd 2 milyan oo tan, laakiin sanadkii 2018 waxay noqotay 426 milyan oo tan. balaastikada la soo saaro sanadkii 9% oo kaliya ayaa dib loo warshadeeyaa, 12%kiibana waa la gubaa, halka 79% ee soo hartayna lagu daadiyo deegaanka. sanadkii 2016 11% kamida balaastikada la soo saaray ayaa lagu daadiyay badaha. wasaqaynta badaha waa qatar guud oo ay dunidu wajahayso, taasi oo saameyn xoog leh ku leh deegaanka. waxyaabaha laga sameeyay balaastikada ayaa inta badan lagu daadiyaa xeebaha, sida ku xusan World Data Soomaaliya waxa sanadkii lagu daadiyaa deegaankeeda 40,000 oo tan oo isugu jira waxyaabaha laga sameeyay balaastikada. dhibaatada balaastikada waxaa laga dhaxlaa caafimaad darro iyo saameyn deegaan oo badda iyo bariba leh. ma jiro hannaan dawli ah kaasi oo si joogta u maareeya dhibaatada bacaha. bulshadana inta badan kuma baraarugsana, haddana waxaa jira dhalinyaro istaagtay inay wax un ka qabtaan, waxa ayna waqtigooda waqti ka mid geliyaan inay nadiifiyaan xeebaha. runtii farxad ay noo tahay in muddo soo wadnay ololahan, waxaana astaan ay u tahay in qofka Soomaaliga ahi uu lahaansho dareemi karo. yani waa gudashada waajibka muwaadinimo, waayo waa astaanta aniga iyo qofka kale ee ajaanibka ee wadankayga joogana kala saaraysa waxay tahay in aan lahaansho muujino oo aan dalkeena iyo dadkeena aan nadiifsano. runtii mar waa ajar, mar waxa weeye isxilqaan, mar waxa weeye nadiifin, mar waxa weeyaan muujinta muwaadinimada iyo lahaanshaha dalkeena dadka. farxad ay noo tahay inaan saaka isbuucii joogno 55aad. xalka kaliya ma ahan in la ururiyo, waxaa loo baahan yahay in dhibkaas xal loo bedelo ayadoo dib loo warshadaynayo si looga soo saaro waxyaabo kale. magaalo xeebeedka Lamu ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha dhibkii xal loo bedelay, waxaana dib loo warshadeeyay bacaha iyadoo laga sameeyay duumo. balaastikada ayaa ah waxyaabaha haddii dib loo warshadeeyo laga sameyn karo wax soo saar kale, waana fursad maalgashi oo u bannaan ganacsatada.